السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دوادا halkan waa deegaanka TV meel walba ay nagala jaan qaadaysan dad ku cusub tahay channelkan subscribe saar aad baad u maasantiin maanta waxaanu eegi doonaa sida xilka loo qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Ali Khayre gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in baarlamaanka uu kalsoonida kala noqday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre gudoomiyaha golaha shacabka warbaahinta la hadlay sheegay in cod loo qaaday kadib 170 xildhibaan ee kalsoonida kala laabteen xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre halka ay diideen 8 xildhibaan oo kaliya Mursal ayaa ugu baaqay in madaxweynaha uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo dalka u horseeda doorasho dadweyne sida uu faray dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waa in madaxweynaha uu si degdeg ah u soo magacaabo ra'iisul wasaare ee xukuumadda wadankan gaarsiin karta doorasho qof iyo cod ah oo Mursal halkiisa ku soo koobay انت في دنك عن تتاجع دجيا انت كعامصي حكومة كالسؤالين وعلى نقضي وعدي مدحوينها جمهورية الفدرالية وعينو صادسة حكومة أوده ودن كدورسة إنه قارتيسو طبعا كان نقوى حريهاي gudoomiyaha Mursal ayaa ku eedeeyay xukuumadda Khayre inay ku guuldareysatay arrimo dhowr ah oo muhiim u ah qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah qodobada uu gudoomiyaha Mursal sheegay in xukuumadda Khayre ay ka gaabisay waxaa kamid ah diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod sanadda 2021 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada aftay u qaadista iyo meelmarinta dastuurka hirgelinta nidaamka asxaabta siyaasadeed diyaarinta ciidamo amni oo suga heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada uu joogay fadhiga baarlamaanka ayaa diiday dooda kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyagoo ku tilmaamay go'aanka ridista xukuumadda mid ka timid gudoonka oo kaliya isla markaana aan sharciyad haysan waa maalin ummadda Soomaaliyeed mugdi waa in gudoonka baarlamaanka oo si sharci darro u dhaqmay waxaana laga rabaa inuu keeno cadeyn in dood ay dhacday eedeynta loo soo jeediyay xukuumadda xildhibaanada ay ka doodeen waxaasoo dhan ma aysan dhicin waana nasiib darro ayuu yiri xildhibaan Maxamed Abubakar Islow Ducaale oo sidoo kalena wasiirka amniga gudaha haddaba daawada sidee xilka looga qaaday Mr Khayre inkastoo ajendaha baarlamaanka aysan ku jirin horena aan loo qorsheyn xilka qaadista Xasan Ali Khayre ayaa taa bedelkeeda xildhibaanada waxaa loo sheegay inay ka doodi doonaan arrimaha la xiriira doorashooyinka balse markii dambe gudoomiyaha golaha shacabka Mr Mursal ayaa sheegay in baarlamaanka uu kalsoonida ka noqday xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre gudoomiyaha oo kulanka baarlamaanka kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in cod loo qaaday kadib 170 xildhibaan ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda Khayre 8 kalena ay diideen ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in xilka laga qaaday loo maray wadaan sharciga waafaqsanayn isla markaana hareer marsan dastuurka dalka Khayre oo muuqaal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in wixii ka dhacay golaha shacabka ay ahayd sharci darro isla markaana aan loo marin habraaca saxda ee xilka qaadista xukuumadda
waxa uu ku adkaystay in xilka qaadista aysan xitaa ku jirin ajendaha kulanka golaha shacabka balse hadda uu qaatay inuu is-casilo isagoo sheegay inuu u turayo dalka isla markaana aan dib loogu laabanin burbur iyo dhibaato. anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato. ka sokow in uu mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in fursad uu siiyay uu ku shaqeeyo shacabka Soomaaliyeedna uu shaqeeyo. haddana Khayre waxa uu muuqday in madaxweynaha iyo golaha shacabka uu ku eedeynay inay muddo kororsi ay rabaan, wuxuuna sheegay in arrintaasi ay horseedi karayso khalalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale. inkasta oo kulamadii dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. haatana daawadayaal xubin muhiim ah aanu ku eegi doono Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. nin noocee ayuu ahaa, goorma ayuu siyaasadda ku soo biiray, maxaa u qabsoomay, maxaase u qabsoomin oo loo maalin xilka looga qaaday. arrimahaas iyo arrimo kale oo aad u fara badan waxaa inoo qaadaa dhiga inoo gorfayn doona Mr. Alantara Nasiib Diinle oo ka howlgala Bahda Deegaanka TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal galabta waxaan eegi doonaa qodobyo ku saabsan ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxyeeluhu ku sababsaday in xilka laga xayuubiyo. isla markaana Xasan Cali Khayre nin nooc muu ahaa sidaan ognahay ama aan la socono dhamaanteen. Xasan Cali Khayre waxaa markii koowaad masraxa siyaasadda ku soo biiriyay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waqtigii loo doortay madaxweynaha dalka Soomaaliya sanadkan uu ahaa 2017. Xasan Cali Khayre waxaa soo magacaabay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, wuxuuna u soo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimadu si lama filaan ah ama nin ay u qorshaysanto jirin. ka gadaalna wuxuu u gudbiyey golaha sharci dejinta ama aqalka sare waxayna soo ansixiyeen ama soo aqbaleen inuu xilka asaga ah qaban karo 23 Febraayo 2017. maalinka ayuu Xasan Cali Khayre xilka ra'iisul wasaarenimada iyo xukuumadda Soomaaliya la wareegay. isla markiina shacabka Soomaaliyeed dunida daafeeda kala jooga iyo kuwa dalka gudihiisa joogaba waxay u hambaleeyeen madaxweynaha marka ayadu soo magacaabay nin codkar ah ama ay Soomaalida u maleysay inuu qaafin doono ama xilka asaga loo magacaabo uu ku filnaan karo. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu muujiyay isfahan dhexmaray asaga madaxweynaha midaas ayada oo hor loo arkin madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarahoodii aan laga arkin. ugu yaraan waxaan la soconay madaxweyne walba wuxuu soo magacaabi jiray ilaa iyo 4 ra'iisul wasaare, waxayna arrinta sabab u ahayd isfahan la'aan ka dhici jirtay dhexdooda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa. xukuumadda Xasan Cali Khayre uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa waxay soo propose gareysay biilal kala gedisan ugu dambeynna laga aqbalay golaha sharci dejinta lagu aqbalay ama la ansixiyay. waxaa kale wax ka qabtay security-ga ama nabadda dalka midda ayada oo hadda loo malayn karo Soomaaliya inay dib dambe iskugu noqon doonin weerarada iyo dararada hadda marka la dhexmari jiray. Xasan Cali Khayre baabiyay ama uu cirib gooye clan militias ama waxa loo yaqaan maleeshiyad beelad oo qabiil walba oo la gali jiray. waxaa kale uu cirib gooye extrajudicial killing ama dadka oo iska toogto meelal sabab la'aan ama cidlo lagu toogto. isla markaana wuxuu xoojiyay xuduudada Soomaaliya sida gobolka Gada deegaanka Gada oo soo xigay dalka Kenya oo marar badan la soo gudbi jiray siyaalo sharci darro lagu sameyn jiray. Xasan Cali Khayre ugu dambeyn cirib gooyay ama uu sababay inay maaragtay mar dambe la isku gudbin. xukuumadda Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha ka ahaa
waxay ayadana ka howlgashay ama ay arrimo balaaran ka qabatay deen cafinta dalka. deen cafinta ayada haddaba lagu daba jiray welina aan hirgelin laakiin meel fiican marayso si rajada ay tahay. deemabka ayaka oo dawladihii ama xukuumadii ka horeeyeen xukuumadiisa ku soo adeegteen ama ay soo qaateen dalal shisheeyana ka soo qaateen. arinta ayada uu kala kaashaday asagiyo madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda Beyle Ducaale oo maanta loo maleyn inay meel fiican marayso. aan rajaynayna inuu ra'iisul wasaaraha asaga ka dambeeyo si dhameystir doono ama si wadi doono. xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa kale ka shaqeysay dawladda federaalka xubnaha ka sida Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo gobolka Banaadir inay la sameeyaan la dhaqad wanaagsan dawladda federaalka ama dawladda dhexe. ayadana arinta waxa lagu amaanay ra'iisul wasaaraha inuu waqti badan ku bixiyay oo ugu dambeyn ay hirgashay. dawladda federaalka Soomaaliya oo waqti badan loo aqoonsanay inay tahay failed state ama dawlad burbursan ayaa Xasan Cali Khayre wuxuu ka aaminsiiyay dalalka shisheeye ama ajaanibta inay xukuumadda Soomaaliya ay tahay xukuumad istaagtay tashatay wada shaqeyn waxaan ku sameynayso ayada shacabkeeda iyo dawladeeda xubnaha ka taasi oo ka dhigan dalalka shisheeye sidii Imaaraadka Carabta taasoo ka dhigan inuu Xasan Cali Khayre arrimaha dibadda ama aaminitaanka xun oo laga aaminsanaa dawladda federaalka inuu soo afmeeray. isla markaana waxyaaluhu ku saabsan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in xilka laga xayuubiyo waxaan aaminsanahay in arrimaha ay ku saleedahay amniga guud dalka Soomaaliya sida magaalada Muqdisho oo hadda la sheegay inay hadaba wadooyinka qaarkood block yihiin ama xiran yihiin oo hadaba qaraxyo laga fuliyo. midda ayadana horaan u dhahnay inuu aan sheegnay inuu ra'iisul wasaaraha nabadda ama amniga dalka wax ka qabtay laakiin waxa isla markiina jirta in waxyaalo fara badan ay ka dhiman yihiin dhanka amniga dawladda ay waxyaalaha dawladda ama xukuumadda Xasan Cali Khayre gaarsiisay dawladda federaalka. isla markiina waxa la aaminsanahay xukuumadda Xasan Cali Khayre inay ku fashilantay arrimaha Somaliland oo wada hadallada hadaba ka socdaan dawladda Djibouti ama dalka Djibouti. sida hadoo kale dawlad gobolka Puntland iyo Jubaland ay kana waxbaan laga qaban ilaa waqtigan dawladda federaalka aan soo gacan ogolaanin aday noqoto dhaqaale qaybsiga iyo amniga iyo wax walba oo ku saabsan xukuumaddiisa. halkaasina daawadayaal waxaa ku qodobka maanta aanu ku eegaynay ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre xilka qaadista lagu sameeyay. aad baad u mahadsantihiin. fadlan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe saar gambalelka furo sidoo kale like comment share aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waa Deegaanka TV.